haddaan kusii soconno qaybta small intestine-ka ama wax la yidhaahdo xidmaha yaryar ayaga si guud shaqadooda wax kale waxa ahay inay nuugaan nafaqada inay nuugaan absorption sidoo kale insulin sensitivity inay dareemaan haddii insulin badan jiro inay dareemaan ama autophagy wax la yidhaahdo ayagana inay sameeyaan autophagy hadda hore usoo sharaxnay inuu jirku asagu waa maxay seelasha ama unugyada intay inuu isburburiyo oo isnadiifiyo marka ayagana waa maxay shaqadoodu waa inay nuugaan marka ayagana waa inay waqti fiican u helaan qofku markuu cunnada cunayo haddii uu cunnadii cunno kale ka dabageeyo kale dee ayaguna chance u heli maayaan inay absorption sameeyaan ilaa cunnada dhan aa cunaysid meesha markii la burburiyo oo la yaryareeyo meesha ugu dambeysa lagu nuugo waxaa waaye xidmaha yararkaa waaye xidmaha yararkaa iyo xiidadu ka qaata halkaas xiidadu ka qaata marka haddaad chance aad siin wada ayagana dee cunnada waxa laga yahay inay gudbiyaan hore isaga gudbiyaan oo ay saxaro iyo ka dhigaan ayagoona cunnadii ka faa'iidaysan marka qofka cunnada faraha badan saas oo kale ayaan saameyn u leedahay caafimaad marka laga hadlay sidoo kale large intestine-ka asaga waxaa waaye xidmaha waaweyn baa la yidhahdaa marka isagu siduu wuxuu qaabilsan yahay water ama electrolyte absorption wax la yidhahdo oo ah qofki biyihii in jirka uu nuugo ayagana halkaa wuxuu ka dhacaa xidmaha waaweyn buu ka dhacaa sidoo kale waxa la yidhahdaa microbiota fermentation inuu bakteeriyada nooca faa'iidada leh oo kale ayadaa halkaas ku noolaan ka dhaco faa'iidadeeda guudna wax kale maayo waa inuu reduce it waxa la yidhahdo inflammation halkaas caabuqa yaraanaya sidoo kale waxaa kor u kacaya dheefshiidka iyo inuu maarata qofka caafimaadkiisa kor u qaadma qaybtan kale waxaan ka hadlaynaa waxa la yidhaha cellular levelka selka maxay faa'iido u tahay qofka inuu soomo selka ama unuga faa'iidadiisa waxaan niri autophagy waxa la yidhahdo oo ah habku jirku maarata isu nadiifiyo waaye meelaha jirka seela ka dhaawacan kuwa duugoobay kuwaas oo dhan buu jirku waqti u helaa si uu u nadiifiyo sidoo kale markaasna waxay helayaan tamar iyo caafimaad dheeri ah marka qof markuu soomo waxay sameynayaan maxay tahay inay qofku isnadiifiyo oo seelalkaas seelasha duuga la burburiyo kabacdi maxay tahay seel cusub la sameeyo qof jirkiisii inuu qaato waa maxay fresh u qaato waa marka faa'iidooyinka asaga laga helayo maxaa ka mid ah kahortaga kow cudurrada koroniga ah oo qofkii seelashiisa haddii si fiican u shaqeynaya cudurrada waaweyn oo difaac u yahay sidoo kale unugyada inuu hagaajiyo ayadana faa'iido u tahay sidoo kale dib u cusboonaysiinta ama unugyada inuu unug kastoo duugoobay inuu dib u cusboonaysiin ayadana badanaa wax ka hortagtaa baa leedahay aging wax la yidhahdo ama qofku maaragtay inuu da' noqdo kale waxa ka hortaga waa waxyaala faa'iido u leh waaya sidoo kale qofku tamarta oo jir ka faa'iidaysanayo waxaa ka mid a tusaale ahaan qofka hadduu soomo 12 saac maxaa dhacaya waxaa u badan oo dhacaya intaa soo sheegnay autophagy oo ah in qofku jirkii markuu burburintaas la sameeyo inay seelkii asuguma maxay unugyada deegaanka ah iyo unugyada maxay tahay duugoobi inuu nadiifiyo marka waasna waa faa'iido uu caafimaadku ama jirka u leeyahay waa sidoo kale seel wuxuu inuu maarata dayactir oo kale inuu helo ayana caadi waa marka laga hadlayo cunnada qofku inuu maarata ayadana badsado cunnada cunno ka dabageysto marka ayadana maxay tahay marka laga hadlayo calooshii iyo dheefshiidkii dhib bay ku tahay waxaan dhiray calooshii in culays saaro in dheefshiidkii maxay tahay asagoo si fiican cunnadii u shiidin in waqtigii ka dhaco kabacdi uu gudbiyo marka ayadana waxyaalaha ay helaan waxaa waaye rest period ama maxay inay nafsiino inay helaan nafsiina u diidaysa marka qofka inuu intuu hamiinkiisa uma yahay inuu asna cunno fara badan intuu iska ag fariisto iska laalaabto ayadana waa laga fiican yahay oo waxaa la rabaa intii yarada cuntay afurka inay waqti u hesho oo dhiiggii maxay la shiido waqti la helo qofka bacdu gaajoodo saas fiican marka ayadana qaybtaas waaye marka waxaa soconaya continuous digestion waxa la yidhahdo oo qofka inuu dheefshiidkii mataqaana u socdo haddii qofku dheefshiidka uu maanta dhan mashquulsan yahay macda nafis uusa helina caafimaad ahaan dhib uma jiro marka qofkii asna waxaa fiican inuu maarata afurka iyo suxuurta kula kaabsado marka sidoo kale saameynta dheefshiidka uu ku leeyahayna ayadana waa sheegnay waxaa kamid insulin sensitivity ama maxay inuu qofka sokortiisu oo kale maxay tahay ay kacdo kale saameyn ku leedahay qofka miisaankiisii inuu kordho kale qofka controlka sokorta ayadana waxay tahay saameyn caafimaad ku leedahay qofka jirkiisii wax sokor ma ku jiro qofka sida ayaga waxa cayiliya oo baruurta iyo waxyaalaha saara sida ayaga waxa waaye dheeriga wixii sokorta dheeriga waaye macnaha jirka carbohydrate dheeriga waaye carbohydrate la burburiyaa markii la burburiyo waxa la sameeyaa jirka baa lagu kaydiyaa marka qofkaas sooman bishaas waxa laga yaabaa maalmo gaajaysan yahay in wax kasta oo dufan ah jirkiisa ku jiray in maarta la burburiyo la isticmaalo waa maadaama hadda sheego aysan kayd jirin marka ramadaanka soomka badanaa waxaa la isticmaalaa kaydka
qofka jirkiisa waa marka taasna waxay u tahay functional rest waxa la yiraahdaa ama digestive ama dheefshiidkii waxay u tahay shaqadii inuu maanta ka nastay oo kale macnaha oo maxay tahay shaqadiisii si fiican u qabsanay waa marka markaan ka hadlaynaa ayagana difaaca dhanka ah difaaca jirka difaaciisa kor ayuu u qaadaa qofka maxay tahay bisha Ramadaanka markii la galo aragtay ma umaleyn qofka Ramadaanka markuu ka baxo aad buu u yahay fresh ku yahay ama maxay aad firfircoon yahay maana jirkiisa aad ma maxay caafimaad u dareemaya markaas caafimaadkii ku soo dareemaya sababta wax kale ma waa qofka caafimaadka hadda aan sharaxaynay baa iyo ka mid yahay marka waxa ka mid ah soomku wuxuu sida ayaga kiciyaan dhawaan maxay difaaca jirka buu kiciyaa markuu kiciyana waxaan wax kasta wuxuu nadiifinaya bacteria ah wax kasta oo jirkiisa seel duugay wax kasta waa meesha ka saaraya waa sidoo kale wuxuu yareynaya caabuqyada oo markaas bacteria uu ka adag yahay maadaama hadda uusan mashquulsanayn oo cunno shiidid iyo wax kale isku mashquulsanayn hadda wuxuu mashquulsan yahay macna difaaciisu kor buu u badanaya waa marka sidoo kale maxay dheefshiidka markaas isaga waa maxay tahay waa la dimiyaa markii dheefshiidka la dimiyana jirku wuxuu isticmaalaa wixii kaydka ahaa intaas marka uu dansan yahay waxaa kaloo chance helaya seelashii unugyadii baa chance helaya marka faa'iidooyinku waxa waaye inuu isticmaalo dufanki jirka qofka baruurtiisa iyo meelaha jirkiisa saaran dheeri ku ahayd waa la isticmaalaya waa la burburinaya energy efficiency qofka energy buu ka dhiganaya ilaa waxaan radii qofkii cunadii caloosha ka waayo oo lagu dari lahaa dhiig waxaa la isticmaalaya kaydkii hore loo keydiyaa la isticmaalaya marka Ramadaankaas waa maxay sidaasuu muhiimadda caafimaadku u leeyahay halkaana markaan ka hadlayno qofku waa inuu si dhexdhexaad wax cunaa uusan iska badin